sistamka waxbarashada adduunka maanta iskuulada laga dhigo ee nagala dhaadhiciyay inay tahay aqoon iyo xirfad kaabayso jiritaanka mustaqbalkeena ayaanan ahayn runtii mid dhab ah oo aan ku gaari karno guulaha waaweyn ee nolosheenna balse nidaamka waxbarasho ee maanta wax ku baranno waa mid loogu talagalay inuu ku siiyo oo keliya dareen ah inaad wax baratid iyo inaad aqoon-yahan noqonaysid halka runtii indhahaaga laga xiray waaqica dhabta iyo realitiga aad nolosha ku arki karto sababtoo ah qaabka ugu wanaagsan ee dadka maankooda lagu maamuli karo ayaa waxay tahay inaan loo ogolaanin inay u fikiraan qaab madax bannaan oo xor ah iyo in aanan fursadba loo siinin intii loogu talagalay in ka baxsan inay ku fikiraan ma og tahay inay jiraan daraasad iyo cilmi baaris lagu sameeyo dareenka ardada markay iskuulka dhiganayaan siduu mar walba isku beddelo dareenkooda tan ayaana ka soo baxday daraasaddii lagu sameeyey ardadaas waxaa hoos u dhac weyn uu ku yimid dhanka hal abuurka iyo curinta ardayga awooddiisa mar kasta uu qofku isku dayo inuu sii wajaho nidaamkan waxbarasho waxaa si tartiib ah looga qabsadaa maanka iyo caqliga nidaamkan waxbarashada waxaa aasaasay dad ganacsata oo ujeedkoodu yahay inay gumaystaan ama addoonsadaan bulshada marka sidaa daraaddeed waxay iskuullada iyo jaamacadaha ka dhigeen kuwo u soo saara dad shaqaala oo si dhammaystiran oo howlkarnimo ugu shaqeeya shirkadahooda meeshii laga rabay inay soo saaraan dad madax bannaan oo xor ah hadda fiiri qof walba oo naga mid ah oo nidaamkan waxbarashada wax ku soo bartay dabcan waxaa maskaxdiisa lagu soo waday yaraantiisa ilaa uu ka soo weynaanayey u fiirso waa nidaam carruurta lagu bilaabayo da'doodu markii ay jirto 6 jir ilaa iyo 7 sano jir waxaana maankooda iyo caqligooda la maamulayaa ilaa inta ay ka soo gaaraan da'da 18aad dugsi hoose dugsi dhexe ilaa iyo dugsi sare waxaa loo joogtaynayaa intaas oo xiisad oo kala duwan uusan weligiis ardayga marnaba isku keeni karin inuu si guud u wada jamciyo 5 maalin oo ka mid ah isbuucana waxaa calaa maalin qoorta u suran 7 ilaa iyo 6 xiisadood oo kala gedisan uusan warba ka keeni karin ardayga haddaba adigu maxay kula tahay qaabka ugu wanaagsan ee maskax qof lagu maamuli karo dabcan waa markii aad siisid dareen ku dhisan inuu yahay qof aqoon-yahan ah ama aqoon xambaarsan halka dhab ahaantii uu yahay qof maskaxdiisu ay maran tahay oo loo diiday inay si madax bannaan oo xora u fikirto waana sidan qaabka uu sameeyo nidaamka waxbarasho ee maanta runtii nidaamka waxbarashada iskuulka waa brosees dheer oo ardada looga dhaqo maskaxda laga soo bilaabo carruurnimadooda ilaa iyo qaangaarnimadooda iyagoona markaa loo sii diyaariyey habab iyo qaabab kala duwan oo lagu kontaroolo ardayda qaababkaas mid ka mid ihi waa in wakhti iyo juhdi badan lagu bixiyo xaaladaha iyo dhaqanka qofka halka runtii diiradda la saari lahaa waxbarashadiisa xaaladaha dhaqanka waxaa looga jeedaa in la adeegsado xeerar abaalmarino iyo ciqaabid si markaas loo dhiso qofka fikirkiisa iyo weliba habdhaqankiisa xeerar badan oo maanta iskuulladu ay samaysteen ayaa runtii wax looga baahan yahay haba yaraatee aysan jirin islamarkaana ardayga u sababta inuu noqdo mid caro iyo howlkar la'aan ku sifooba meeshii loo baahnaa in deegaanka ardayga uu markaas wax ku barto horumarin lagu sameeyo balse xaqiiqada nidaamkan waxbarasho u dejiyey ayaa waxay tahay aqoontu waa inaad awood u yeelato inaad wax xasuusatid iyo inaad wixii aad xafiday sidoodii ugu soo celisid adigoonan waxba ku darin qofkii si fiican wax u xifdiyo oo kor ka qabta wixii la soo baray waa mid la abaalmariyo balse qofkii u hoggaansami waaye nidaamkaas wixii lagu soo baray waa mid isagana markaas loogu talagalay in xeerka ciqaabta la marsiiyo waa inuu ardaygu ahaadaa mid waafaqsan nidaamkan aqoon ahaan iyo ka bulsho ahaan runtii danta laga leeyahay sistamkan waxbarashada ma aha in aqoonta la baahiyo balse waxa keliya ee loogu talagalay ayaa ah in intii la kara dadka laga dhigo kuwo isku wada mid ah iyo weliba si ay natiijada soo baxda u noqoto mid aanan ku fadhin haba yaraatee wax micno ah maxay tahay sababta kugu kalifaysa inaad waxaan oo dhan aad marto maxayna tahay sababta aad u raacaysid nidaamkan waxbarasho ee fashilka ah waxay rabaan inay kuu sheegaan qaabkaad u maraysid wax walba aad qabanayso iyo xitaa sidii aad uga fikiri lahayd warqadda imtixaanka haddaadan ka shaqaynin oo waxa lagaa raba aadan qaadanin waxaa lagaa dhaadhiciyey inaadan marnaba guulaysanaynin haddii aad ku dhacdo imtixaanka iskuulka waxay ka dhigan tahay inaadan waxba aqoonin oo aadan waxba fahmaynin sidoo kale nidaamkan waxbarasho wuxuu qaabeeyey buugaagta iyo sannad dugsiyadyada si ay u noqoto mid kala googo'an oo isku xidhneen balse runtii aqoontan la baray ardayga iyadoo kala qaybqaybsan lagama yaabo marnaba inuu isugu geeyo maskaxdiisa iyadoo dhammaystiran runtii ardadu waxay noqdeen kuwo xirfad leh oo wax u sameeya sidii iyo qaabkii loo soo baray oo keliya islamarkaasna waxay dhumiyeen awooddii ay u lahaayeen inay sidooda gaarka ah wax u hintisaan
ama qorshe cusub ay la imaadaan taasoona ugu dambayntii ka dhigaysa sidii mashiinada lagu borogaraamiyey inay wax qabtaan iyagoonan wax su'aal ah haba yaraatee aanan ka keenin balse ardayga dareenkiisu uu soo jeedo oo wax ka fahmay nidaamkan waxbarashada waxaa laga yaabaa inuu isweydiiyo maxay tahay sababtan waxaan u baranayo maxaa waxaani looga jeedaa oo looga dan leeyahay ardada kuwooda caqliga badan waa kuwo mar hore iskaga baxay iskuulka iyo waxbarashada waana sida uu sameeyey Bill Gates wuxuu iskaga tagay uu ka baxay jaamacadda Harvard isagoonan bataatan ka qaadan wax digrii ah sidoo kale milkiilaha shirkadda Steve Jobs isna wuxuu iskaga tagay mar hore waxbarashada iskuulka bal u fiirso dadka hantiilayaasha ahi dhammaantooda mar hore ayay iskaga tageen nidaamkan waxbarashada sababtoo ah waxay ogaayeen haddii ay rabaan inay sameeyaan lacag iyo hanti inaysan ahayn qaabkii ay ku samayn lahaayeen lacagta iyo hantida sidaa daraaddeed haddii aad jaamacadda u gasho inaad nolol ku raadsato wakhtiga uunbaad iska luminaysaa mooyee meel fiican kuma tegi doontid hadda xilligan xitaa ardada inay waxbarashada iskaga tagaan waxaa ardada kula taliya qaar ka mid a maamulayaasha shirkadaha Maraykanka ku yaala waxay ka bartaan ardada iskuulada waa wax aan waxay tarayaan haba yaraatee aysan jirin ha ka yaabin ardada inay siiyaan tababar xirfadeed oo garaadkooda xoreeya waxaana jira maanta doodo fara badan oo ku dooda in waxbarashada hadda jirta ay tahay mid wakhtigeedii uu dhammaaday Albert Noord oo ahaa mid ka mid a aqoon-yahanada xisaabta ku xildheeraa qarnigii 19aad wuxuu yidhi casrigan hadda la joogo xisaabta foomka ugu muhiimsan waa tirakoobka ama statistics-ka midaasna ardayga laguma baro dugsiga sare haddana sidaas ay tahay ardayga dugsiga sare dhigta waa mid uu si fudud ku fahmi karo tirakoobidda waxaa loo adeegsadaa waxyaabo badan oo nolosheena ku xidhan haddana ma aha ardayda kuwa la baro ilaa inta ay ka soo gaaraan jaamacadda waa maxay sababta marka ardayga loo baro geometry maxayna tahay sababta ka dambayso in ardayga la baro xisaabta aljabrada ardayga isagoo yaaban oo iska fadhiya ayuu wuxuu isweydiinayaa maxay tahay waxani waxa looga jeedo maxaan ka helaa oo aan ka faa'iidaa 3x lagu daray 2x waxay la mid tahay waxba igama gelin sababtoo ah sideedaba ma jirto micno guud oo ka dambaysa in ardayga waxaan loo dhigo mideeda kale waxaa jira qaab kale oo ah in ardayga laga dhaadhiciyo inuu maro noloshiisa hal waddo ee tahay inuu qaado waana qaab si joogto ah looga dhaadhiciyey inaad dugsi sare dhammaysid inaad jaamacadda dibloome ka heshid inaad jaamacadda master ka qaadatid isla markaana aad noqoto qof raadiya shaqo la isku halayn karo arrimahaasoo idil haddii aadan samayninna ay noloshaadu noqonayso ruux aanan guulaysanin marka waa maxay sababtaad sidaan oo dhan u samaynaysid iskuulka inaad aadid adigoo carruur ah kadibna ay waajib kugu tahay inaad jaamacadda dhigatid maxay tahay sababtaas iska daa dadkaaba kugu dhiirigeliya inaad jaamacadda dhigatid inaad iskuulka dhigatid inaad nidaamkaas raacdid adigoonan su'aal ka keenin maxaa yeelay dadku iyagu ma oga xaqiiqada dhabta ee meesha taalla waxaana dadkaas ka dhaadhacsan nidaamkaas la'aantiisa inaadan noloshaada guulaysan karin qof baaba laga yaabaa inuu ku dhaho haddaadan jaamacadda dhiganin shaqo wanaagsan ma heli doontid waxaa lagu gelinayaa buufis iyo cabsi ay meel ay ka keeneen aadan aqoonin haddaba aan kuu sheego ardada ka soo baxda jaamacadaha waxaad ogaataa inay yihiin kuwa ugu badan ee subarmarketyada alaabta ku xirxira laakiin ogow inaad karti u leedahay inaad wax curiso inaad wax hintisto adigoonan iskuul iyo jaamacad midna aadan dhiganin uma baahnid inaad lacagtaada iyo wakhtigaaga aad ku khasaariso sistamkan waxbarashada ee fashilka ah haddii ay kula tahay xaqiiqada dhabta iyo waaqica jira inay ku barayaan ogow in si fiican lagu siray oo lagaa dhaadhiciyey nidaamkan waxbarashada sababtoo ah xaqiiqooyinka dhabta waxaa lagu maran habaabiyaa buugaagta waxbarasho uu nidaamkan kuu dejiyey si adduunka looga bixiyo sawir been ah oo aan jirin buugaagta kuwa sayniska iyo taariikhda ayaa ah kuwa ugu khatarta badan uguna beenta badan waxaana qoray buugaagtan dad dana gaara ka leh si loo maran habaabiyo bulshooyinka caalamka sidaa daraaddeed xogta buugaagtan ku qoran waa kuwo xaqiiqooyinka ka fog sababtoo ah waxaa loogu talagalay inay ka dhaadhiciyaan ardayga fikradaha sistamkan waxbarasho uu taageersan yahay waxayna ugu talagaleen keliya inaan adeegsanno qaybta bidix ee maskaxdeenna ee qaabilsan inay xogta aruuriso halka dadka laga hor istaagay inay adeegsadaan qaybta midig ee maskaxdooda oo qaabilsan hal abuurka niyadgelinta iyo xiriirka dadka kale marka ugu horeysana waa inaad ogaataa inay dadku adeegsadaan qaybta bidix ee maskaxdooda isagoona sistamkan waxbarashada dadka ka dhigay kuwo xabsi ugu jira qaybta bidix ee maskaxdooda qaybtaas bidix ayaana lagu shubaa xogta la rabo inuu qofku xambaaro markuu iskuulka bilaabo kadib kuleejka kadib ilaa jaamacadda uu ka baxo hadhow markii la gaaro wakhtigii imtixaanka waxaa qofka loo sheegaa haddii aad waraaqadan aad ku qortid wixii aan ku soo barnay ama wax u dhow waad baasi doontaa
hadhow noloshaadana waxay noqon doontaa mid guulaysatay. balse qof walba oo la siiyey xogtaas oo kadibna u wareejiyey dhanka midig oo haddana wax iska weydiiya oo hadhow imtixaanka markii la gaaro u wareejiyo xogtaas qaybta midig ee maskaxdiisa, waxaa loo arkaa inuu yahay mid qalalaaso ku ah ardada fasalka. marka sidaa daraaddeed maanta si aad u noqotid dhakhtar, weriye, looyar ama siyaasi, waxaa qasab kugu ah inaad la soo qabsato ilaa iyo yaraantaada si aad si joogto ah aad xogtaas u geliso qaybta bidix ee maskaxdaada. kadib hadhow markii lagu soo hordhigo waraaqadda imtixaanka aad xogtii sideedii dib ugu soo celiso. tan kale xitaa haddii aad noqonayso macallin, waa inaad soo martaa tababar aad ku qaadanayso sida dadka maskaxdooda xogta loogu shubo. kadibna adna sidii iyo si lamida ayaad ugu shubi doontaa carruurta yaryar ee soo koraysa. gebi ahaanba sistamkan waxbarashada sidiisaba waxaa wata dad addoommo u ah qaybta bidix ee maskaxdooda. middeeda kale haddaad u fiirsato goobaha waxbarashada, waxaad arkaysaa in dadka qaybta midig ee maskaxdooda adeegsada in si joogto ah looga saaro goobaha waxbarashada, iyagoona booska loo banneeyo dadka kuwa adeegsada qaybta bidix ee maskaxdooda. runtii waxaani waa wax mar hore laga soo shaqeeyey in lagu sameeyo bulshooyinka. nidaamkan waxbarashada culays kama saaro qaabkii loo horumarin lahaa ardayga aqoontiisa, balse wuxuu awoodda saaraa 3 shay oo nidaamka muhiim u ah. marka koowaad waxay awoodda saaraan xasuustaada iyo xifdiskaaga, laakiin caqligaaga iyo garaadkaaga wax ka quseeya haba yaraatee ma jirto. waxayna ardada ku kalifeen inay kor ka qabtaan mawduucyo hore loo sii diyaariyey oo aanan loogu talagelin in la barto, balse loogu talagalay inay kaa hor istaagaan waxyaabo kale oo muhiim ku ahaa inaad ka fikirtid. midda labaad, imtixaanaadka lagaa qaadayo ma aha kuwa tijaabinaya garaadkaaga iyo caqligaaga, laakiin waa kuwo la rabo inay tijaabiyaan xasuustaada iyo xifdiskaaga. haddii mar walba si joogtaa lagugu shubayo beentan ilaa iyo yaraantaadii, maskaxdaadu waxay si toos ah u aqbalaysaa inay tahay xaqiiqada dhabta ee jirta, iyadoona markaasina adkaanaysa in wax kale haba yaraatee lagaa dhaadhiciyo. midda saddexaad, aqoonta intay kaa siiyeen waxay kuu bareen oo keliya si aad shaqaale ugu noqotid shirkadahooda iyo xafiisyadooda. sababtuna waxay tahay waxay u baahan yihiin shaqaale daacada oo wareejiyey sistamkii ay ku shubeen. runtii waxbarashada iyo aqoonta looma samaynin in hanti iyo lacag lagu raadiyo, balse waxaa loogu talagalay in garaadka iyo caqliga bini'aadamka kor loogu qaado. mawduucina maantana intaas ayuu ku egyahay. wasalaamu calaykum.